wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa si cad wuxuu u muujiyay sida ay dalkiisa ugu go'an tahay taageerada uu siiyo Soomaaliya isagoo wareysi uu siiyay majalada June Africa waxa uu ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee Turkiga uu ka ciyaarayo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta amniga dalka. Wasiir Fidan ayaa ku tilmaamay Soomaaliya dal istiraatiiji ah oo muhiim u ah istiraatiijiyada Turkiga ee gobolka isagoo carabka ku adkeeyay in Ankara ay ka go'an tahay inay ka taageerto nabadeynta dib u dhiska iyo dagaalka lagula jiro maleeshiyada Al-Shabaab. Isagoo ka hadlayay xiriirka labada dal ayuu sheegay inuu yahay mid qoto dheer oo istiraatiiji ah isla markaana Turkiga uu sii wadi doono taageerada dhinacyada difaaca, gargaarka bini'aadanimo iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxa uu sidoo kale wareysigiisa uu ku xusay in Turkiga uu si dhow ula shaqeeyo dowladda federaalka Soomaaliya si loo xoojiyo awoodda ciidamada iyo hay'adaha sirdoonka. Hadalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli dhawaan Turkiga uu shaaciyay heshiis cusub oo iskaashi dhinaca difaaca uu la galay Soomaaliya. Heshiiskaasi waxa uu ka kooban yahay tababarka ciidamada, dhismaha kaabiyaal ciidan iyo bixinta qalab muhiim u ah dagaalka lagula jiro kooxaha Al-Shabaab. Turkiga waxa uu ka mid yahay dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya isla markaana waxa uu ka taageeraa sidii tababar dheeraad ah loo sii lahaa ciidamada dowladda iyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka.